shaqada ka socota garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waa mid baaxadeedu ay aad u ballaaran tahay mana dareemi karo qof dibadda ka jooga garoonka iyadoo lagu guda jiro xilli kulayl ah magaalada Boosaaso ay ku taalo xeebta badda cas ayaa shaqaalaha wada dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxa ay shaqeeyaan habeen iyo maalin si ay u hirgeliyaan garoon caalami ah oo ay yeelato Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya xilligan waa waqti habeenimo ah garoonkana waxa ka socota shaqo adag waxa lagu guda jiraa dhismaha baakinka diyaaradaha oo ah goobta rikaabku ay ka raacaan kagana degaan diyaaradaha sida uu sharaxayo maamulaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso Bashiir Muuse Cabdiraxmaan meeshii diyaaradu ku baakimaneysay marka la rarayo iyo markay soo degto oo dadku ka fuulayaan ama kaga degayaan oo la yiraahdo baakinka ama ay diyaaradu dhigato oo baakinka diyaaradu ku baakin garaysato markay runway ka soo degto taxiway ka soo gasho ay ku baakin garaysato in shubki ku socdo oo uu gabagaboobayo biidnillaahi inta ka hadhay bisha sagaalaadna ay bilaaban doonto runwayga labadiisii gees oo diyaaraduhu ka soo cagadhiganayeen ama ku kala jiireynayeen shubabkoodii dabadeedna la shubi doono runway waxa dhamaatay wajigii hore ee shaqada sida qaybta runwayga diyaaradaha ama dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan inta la cakisay ayaa la simay waxaana la saaray dabaqada ciid oo kala sareeya intaas kadibna waxa lagu shubin doonaa daamuur si ay diyaaraduhu u helaan wado ay si sahlan ugu ordaan waxa mar walba laga taxadarayaa toosnaanta garoonka iyadoo la adeegsanayo qalab loogu talagalay oo loo xilsaaray shaqaale gaar ah oo u tababaran sida uu mar kale sharaxayo maamulaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso Bashiir Muuse Cabdiraxmaan waxaan marka rabaa inaan u sheego dadweynaha Puntland in ay dhamaatay shaqada faysaskii hore tabaqadihii hore oo soo maray ama marxaladii hore oo soo maray airportku una taagan yahay marxaladii ahayd in hadda shaqada socoto fayskowaadka ah ama aan Soomaali ku iraahay shaqada wajigii u horeeyay oo la rabay inuu qabsoomo oo ahaa 2400 oo mitir 2 kiiloomitir iyo 400 mitir aan iraaho ama aan iraaho 2400 oo mitir hadba nin walba sidoo u yaqaan in ay dhamaatay shaqadii garayfalka la oran jiray ama ciidihii iyo sibiradii la isku darayay ayna bilaabatay shaqadii ku xigtay uguna dhameysay oo ahayd tan markii tanu dhamaato hadda socota in lagu soo dago airportkii ay suura galeysay oo runwayga la isticmaalo maxay tahay marka aan fasiro shaqadaas waxa bilow ah sidaad indhihiina ku aragteen oo meediyadiina aad u bandhigi doontaan dadka waxa bilowday shaqadii ahayd in la shubo airportka oo marxaladii u dhameysay warshadii sibirka shaqadeedii waad aragtaan waxa qorshaha garoonka lagu wadaa inuu noqdo mid ka duwan garoomada kale ee ku yaala geeska Afrika kana baaxad weyn si marka taasi loo hirgeliyo garoonka gudihiisa waxa lagu soo dhameystiray dhammaan qalabkii dhisme sida warshada shubka xarun laga hago hanaanka guud ee shaqada dhisme ee ka socota garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso sida uu sharaxayo injineerka ciidda u qaabilsan runwayga garoonka waxa laga yaabaa airportka saan hadda filayno inuu noqon doono airport caalami ah oo u dhigma kan Bahrain iyo Qatar waxyaalo xajaan awood u leeyahay shay karin oo dad mutaqaana ku shaqaleeyeen laakiin sida aan rajeynayo aan qabo airportka Boosaaso wuxuu noqon doonaa mid u dhigma kan Bahrain iyo Qatar ka diyaaradahan ka markuu dhamaado ka maamul ahaan sababta area ku yaala oo Afrika iyo Asia wuxuu yahay waa irid waan airport qaadi kara hadda dhismaha saan ku wadno waa airport qaadi kara ka quality ahaan iyo quwad ahaan airportada qaadan Qatar iyo Bahrain u dhigo kala weey shirkadda dhisaysa garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee CCECC waxa ka go'an inay hirgeliso shaqadii ay heshiiska ku gashay waxa ay ku hawlan tahay dhameystirka garoonka sida uu sharaxayo ku xigeenka madaxa ugu sareeya shirkadda dhisaysa garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee CCECC 就是说现在因为就是说波萨索这个地方的那个物质比较匮乏嘛 waxaan soo qabanay shaqo aad u badan waxaana wali noo harsan shaqo ka culus tii aan soo qabanay
wax kasta waa dadaalkuna waxa uu ka bilowday sidii qalabkan loo soo gaarsiin lahaa magaalada Boosaaso ayuu yiri ku-xigeenka madaxa shirkadda ECC ay dhisaysa garoonka Boosaaso 为个物质出现了特殊情况，可能就得要延迟个8月。 guud ahaan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso waxa lagu wadaa in la gabagabeeyo inta ka dhiman sanadka waxaana shacabka Puntland iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ay u hanqal taagayaan helitaanka garoon caalami ah oo laga hirgeliyo magaalada Boosaaso sidan socota Maxamed Xasan